Africa waxaanu ka mid ahayn bahadii jaamacadda bariga Afrika hoolkan waxa ugu dambeysay maalintan qalin jabiyay dib ugu soo laaban xafiiska aan tagi jiray marka inaan dib ugu soo laabto oo maanta hoolkan ka hadlo sharaf bay tahay waxaanu ka hadlaynaa suugaanta iyo diinta xiriir ka dhaxeeya waa ogtihiino Soomaalidu waagi hore waxay wax ku qaadan jirtay suugaanta iska daa marka gabayada laga soo tagay islaantii ayada ahayd wali waa nooshay ilaa cimriga u dheereeyay cirgaabay joogtaa marka salaada casr la gaaro waxay ku heesi jirtay cadceedii waa taa dhacdo la soo celin maayo ninuu casr dhaafay baan cadaab uga yaabaya waa garanaa salaada casr halkay taagan tahay Ismaaciil Miro kale markuu ka hadlaayay ma aragtay inagu hadda jaamacadda dhiganaa arday baynu nahay qof walba meel buu socdaa waxa laga yaabaa waxaynu u soconnaa oo dadka niyadooda ku jirtaan walba wuxuu leeyahay bariiskeena cirka koray buu ninkii yiri walba shaqo raadinaya nin meel wuxuu saaran yihiin ma jiro laakiin Abaan Ismaaciil Miro kale wuxuu noo qeexayaa haddaad shaqada doonto iyo haddii kaleba wixii Ilaahay kuu qoray ilaahay marna waayo gabaygiisa caanka waa tuulaha kulligood adoomaha rabbi u qaybshay kibistii qof kasto kabtiya ama kalaha ama ku dheer fuula badka luun ku jira kolay ku tahay ama si koob shaaha niba kadabkii loo qoray ilaah uu la kulan siine rabo kibirka waa lagu kufaa taalowga dhinaca kale sheekan idinka sheekeynaya waagi baa la yiri waagi hore waxa dadku waa caajiseen oo arkaayo waxaan rabaa inaan ma aragtay sidii caasho galeed oran maayo caadi iska dhigay laakiin se waxa la yaaba waxa la isku qabsaday jaamacadeenu waa jaamacad islaami ah wadaad baalgaaba oo aan diinta aad ugu wanaagsaneyn ayaa waxa la weydiiyay su'aalo waxa la war sheekh qaadu salaadka qofka salaada googooya iyo taariku salaadka ka daran baa la weydiiyay in marka aan diinta waxba ka aqoon baaq fadhiyo agtiisa fadhiya dabadeedna wuxuu yiri su'aashaas madaxu xoqday kii kale ay sheekh ku adag tahay ma isku dayaa su'aasha waa la isku dayaa markaas wuxuu isku day balaadu markaas uu sheekh qaad cuslaadku Soomaaliya salaad googooya kana salaadii waa ka tagay Soomaaliya sheekh markaas uu yiri deenin xoolo jajaban haysto ay xiro ugu jiraan iyo nin waxba haysan ma sugu mid baabi aakhirada ninka wixii jabnaa loo xisaabinayaa kan isagu waxba ma haysto waxa kale oo ognahay tawxiidka markii laga hadlayay kelmadda ilaah ninba wuxuu maqlay iyadoo sheekh uu tafsiir akhrinayo leeyahay ilaahay waa ilaah kaliya ilaah kale ma jiro dabeedna dadkii uu kula noqday reermiigaha suugaan buu ugu sheegay dhibaatada ka iman lahayd dunidan haday dhowr ilaah jiraan buu sheegay wuxuu yiri ilaahyadu haday dhowr yihiin lama dhaqnaadeen diif iyo colaad iyo kolkay dhiil kala gaadho dhawaaqooda kaliya nafulu dhiman lahaay adduunka laba ilaah ka jiraan oo isla gaalaya bal adigu sawiro sida adduunkaas noqon lahaa wuxuu tilmaamayaa yani adduunkan in hal ilaah uu maamulayo oo aan ilaah kala jirin nin kale abwaani wuxuu fasiray diintu inaanay qabiil iyo reer lahayn waxa kaliya adduunka lagu midoobayaa islaamku diinta saamidaysa wax kale ma mideeyaan dabeedna wuxuu yiri jifa iyo qabiil diintu wajaad ka gooni ah jinsi aad u dhalatiyo tilmaan joogna lahayn ma Afrikaan baa tahay ma Cajab baa tahay ma Arab baa tahay islaam hadaa tahay islaam baa tahay muxuu ahaayay marka taas waxay tusinaysaa sida suugaantu diinta islaamka u fidinayso oo ay qayb uga qaadanayso waxa la yiraahdaa afarta qolo ee Soomaaliga hormariyay waxa ugu horeeyay culimadii hore Soomaalida oo Soomaali ku macnayn jiray erey kasto Carabi ah maanta waxa arkaysaa sheekh isla Carabiga iyo Carabi kale ku si macnaynaya waa arkaysaa halka sheekh Soomaaliga hore uu erey walba u dooni jiray macna Soomaali u dooni jiray waxaan ku soo khatimayaa ardaydu markay jaamacadda bilaabayaan waxay qaateen strategic decision go'aan istiraatiiji ah oo muddo dheer ah 4 sano baad qaadatay inaad halkan joogto si aad wax u barato gabay ka hadlaya socdaalka aad ku jirto inuu jiro qaar lagu khasaaro iyo qaar lagu faa'iido dabeedna nin gabiyaa wuxuu yiri
waxaa jira socdaal gaaban waxaa jira socdaalada la kala beegsadaa suurad kala roone waxaa jira socdaal lagu hanto saac iyo ugbaad waxaa jira socdaal baylaho marinka ku seegtaa waxaa jira socdaal dheeraran oo lagu sirqoobaaye waxaa jira socdaal gaaban oo lala saqiiraaye waxaa jira socdaal qoomabo lagu solguuraaye haddaan saadirkay kuu sakhirin tirada saytaysan waxaa lagu saroobaa haddaan socodku qeexnayne samir iyo dulqaad buuraha lagu salooshaaye marmar siibataa dhacdo noloshu waa saase casharada si adag lagu bartaa waysad aan gurine waayo aragnimaa lagu saxaa socodka maalmaha marka waxaan idin farayaa adkaysi waxaan kaloo salaamayaa waan ku faraxsanahay jaamacadda waxaan ugu yimi asxaabtaydii anu martimihi raggii aanu isku xilliga ahayn baa jaamacadda madaxdeeda ku jiro waxay ku tusinaysaa jaamacaddu inay dadkeedii wax u dhiibtay khaalid baa ka mida siciid axmed taajir baa ka mida waxaanu ahayn qoladii ugu horreysay bandhiggii ardayda toddobaadka ugu horreeyey qabatay oo hal abuurkaa lahayd maantana faracyadana waa joognaa dee idinkana waxaa laydin diyaarinayaa bal raggaa inaad beddeshaan oo aad jaamacadda ku fikirtaan inaad wax ku darsataan asalaamu calaykum raxmatullahi barakatu maalgelinta bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib ah ama billo ah